Cabdiraxmaan Xasan Dacar oo isagu kamid ah ciidamada daraawiishta dowlad goboleedka Puntland oo ku indhabeelay weerar 2010 ka dhacay buuraleyda galgala ee gobolka Bari ee Puntland kuwaasi oo la dagaalamay maleeshiyadka Al-Shabaab ayaa ka codsaday madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuu ka gacan siiyo sidii uu heli lahaa caafimaad dalka dibadiisa ah. wariyahayaga inooga soo warrama magaalo xeebeedka Boosaaso Maxamed Muuse Tarsan oo howlo shaqo u jooga magaalada Garowe ayaa warkan inoo soo diray. saddex xarigle Cabdiraxmaan Xasan Dacar isagoo 66 qaba buu go'aan geesinimo leh ku xidhay labiska ciidanimo si uu dalkiisa hooyo u difaaco balse 22kii bishii 10 sanadii 2010 ayuu indhihiisa ku waayay qarax ka dhacay buuraleyda galgala ee gobolka Bari oo ay Puntland kula dagaalamayso maleeshiyadka Al-Shabaab. Anigu waxaan kamid ahaa ciidanka Puntland ee daraawiishta difaaca Puntland waxaan ku naafoobay 2010 bishii 10 howlgal ka dhacay gobolka Bari magaalada galgala inta ka bacdi waa naafan haween dhalaa si aad nabad ugu noolaato ayuu halis u galiyay naftiisa oo saaxiib uga dhigtay hubka aad ka cabsato ee wax gumaada balse sugidda amniga dartiis ayuunbuu u naafoobay oo shalay kaama liidan maanta se kuma arki karo. inkastoo dalka Itoobiya dhakhtar loo geeyay haddana maysan suuro gelin in loo iftiimiyo indhihiisa oo wuxuu isku arkaa halyay aan helin hiilkii uu mudnaa sababtoo ah difaaca dalka ayuu ku waayay xubnihii ugu muhiimsanaa jirkiisa kadib firir indhaha ka galay oo mustaqbalkiisa mugdi geliyay. ciidanku sarjar u leeyahay taliye horin buu leeyahay taliye urur buu leeyahay taliye guud buu leeyahay taliye ciidan oo guud buu leeyahay meel kasta markaan soo maray taliyihii guud ciidamada guud Siciid Maxamed Xirsi Siciideera leegay 7 bilood baan ku dul wareegay aan gurigiisa ugu tagay markii xafiiskii aan ka waayay gurigiisa ugu tagay waxaan ka codsaday taliye iyo gudbi madaxweynaha ama dhakhtar ama adigu madaxweynaha iigee wuxuu kuma geyn karo waxna kuma qaban karo madaxweynuhu ana dhakhtar kuma dirka madaxweynaha kuma geyn karo waxaan ku ka tagi maayo bartaasan fadhiisanaya fadhi buu haddaan naafoodo rag kale midka ahaa walba gurigoodii baa aaday gurigeena aad mushaarkaaga markaa heshan qaad markaa weydinaa meesheeda. dowladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan madaxda sare buu ka codsaday inay dhakhtar dalka dibadiisa u qaadaan si mar kale ay ugu suuro gasho inuu indhihiisa wax ku arko. marka madaxweynaha khayrka qaba ee dadka ka deernaxay ee Soomaaliyeed ee wadaniga ah si ra'iisul wasaare khayrka waana saad u qeyshat oo dhakhtar hintii ah u geeyay ishan waa goof tan uu ma ka rajo qabaa inay ii baxdo marka saasi weeye qayradaydu madaxweynaha waxaan ka codsanayaa madaxweyne waxaan ahay askari Soomaaliyeed wiil Soomaaliyeed wadaniga oo askariya oo dalka ku waxyeeloobay sidii aan ka doonayay kamaan helin madaxda Puntland marka madaxweyne waxaan ka codsanayaa wax yar baa igu filan dhakhtar dabadeed oo Hindiya inaad ii qaado oo ii geyso adiga ra'iisul wasaaraha kuwa qof kasta oo Soomaaliya meel kasta jooga mas'uul baad ka tihiin ama shacab ha ahaado ama ciidan ha ahaado ama hawaalaado ama hamiir qaba ama nafa ha ahaado si wacan wada shaqeynaysa khayr Allah insiyo. saddex xarigle Cabdiraxmaan Xasan Dacar oo ciidanimo qortay 2001 waa aabaha dhalay 4 caruur ah oo aan cid kale wax ka sugayn waxaana maanta uu kaaga baahan yahay kaalmo iyo garab istaag ee tar wixii aad tari karto. محمد موسى ترسن وربحين تقرنك قروي.